الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناسن قيابتنا dhageysanaysa idilahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga webka toddobaadkiiba maraad ka dhageysataan website-ka caalamiga wariyaha.com. barnaamijka maanta wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha labaad oo wariyaha.com uu ku leeyahay caasimada waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. waxaana barnaamijka idin daadihinaya anigoo Axmed Abuukar Xuseen Azhari. barnaamijka bandhiga waa barnaamij toddobaadla isla markaasina aynu ku faaqidi doonaa arrimaha ugu xiisaha badan ee ka dhex jira bulshada inagoo ku martiqaadna dadka ehelka u hadba mawduuca aynu ka hadlayno. haddaba barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku faaqidi doonaa dilka loo geystay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ka mid ah wariyaasha muqdisho kana tirsanaa shaqaalaha tv-ga caalamiga home cable xafiiskiisa muqdisho. 18 bishan aynu ku jirnay December 2011 ayaa nin ku hubeysan qoriga AK47 kuna labisnaa dariiska ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa dil bareer ah ugu geystay wariye xiis xaafada xamar jajab xilli uu ku guda jiro howl maalmeedkiisa shaqo. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa kuna jeexi doonaa dilka wariye xiis iyo waxyaabihii sababay in wariyaha la dilo. waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya Cabdirasaaq Mira Dhoore oo ka mid ah wariyaasha Muqdisho kana howlgala TV-ga caalamiga Home Cable TV. sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya Maxamed Cabdullaahi Aadan CD oo ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed in muddaana kasoo shaqeynayay saxaafadda sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya hadduu allaha awoodda leh raalle uu ka noqdo xildhibaan qadar biixi caalim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya. wuxuuna xildhibaanka ku cabirayaa dareenkiisa ku aadan dilka loo geystay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ciise Maxamuud oo ka tirsan wariyaasha idaacadda Risaala oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. wuxuuna in badan Maxamed la soo shaqeeyay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis wuxuuna ka hadlayaa dareenkooda ku aadan hadday yihiin idaacadda Risaala dilka wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya hadduu allaha awoodda leh raalle uu ka noqdo Cabdiraxmaan Xuseen British oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed kuna sugan waddanka Kenya. wuxuuna Cabdiraxmaan dareenkiisa ku cabirayaa dilka loo geystay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis. dhammaan akhyaartaas ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaysa hadduu allaha awoodda leh raalle uu ka noqdo. barnaamijka waxaad ka dhageysanaysaan website-ka caalamiga ee wariyaha.com. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga wariyaha. aan hore idinkugu sheegay hordhaca barnaamijkan aad ku maqasheen waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay isbuucii la soo dhaafay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ahaa madaxa wararka TV-ga caalamiga Home Cable TV xafiiskiisa magaalada Muqdisho. haddaba intaynu barnaamijka u gudagelin bal aynu yaro dhageysano warkii ugu dambeeyay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis uu ka diyaariyay khilaafka u dhexeeya baarlamaanka dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya isagoona si aad ah uga hadlayay arrimaha baarlamaanka. wuxuuna wariye cabdisalaan u qaabilsanaa TV-ga caalamiga Home Cable TV arrimaha iyo khilaafka u dhexeeya baarlamaanka dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya. wada duube khilaafka baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasadda guud ee dalka ayaa iminka u muuqanaysa inay noqotay mid jahawareer ah. cabdisalaan xiis sheekh xasan TV-ga caalamiga Home Cable magaalada Muqdisho. allaha u naxariisto wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis 18 bisha aynu ku jirnay December 2011 ayaa waxaa nin ku hubeysan qoriga AK47 kuna labisan dariiska ciidamada dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya waxa uu dil bareer ah ugu geystay xaafada xamar jajab xilli uu gudanayo howl maalmeedkiisa shaqo. haddaba si aynu xog dheeri uga helno dilka wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray Cabdirasaaq Mira Dhoore oo ka mid ah wariyaasha Home Cable TV. wuxuuna iiga warbixiyay dilka wariye xiis iyo qaabka uu dhacay. cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ka tirsanaa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xafiiskiisa magaalada Muqdisho. abara 10 galabnimo ee maanta ayaa waxaa nin ku labisnaa dariiska ciidamada dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga waxa uu xabad kula dhuftay inta u dhaxaysay isgoyska xamar jajab iyo hotel Madiina. cabdisalaan xilliga xabadda ay ku dhacaysay waxaa la socday madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee telefishinka Home Cable TV xafiiskiisa Muqdisho Sakariya Cabdullaahi
xilligaas gaari ayay wada saarnaayeen gaariga waxaa gacantiisa ku waday marxuumka Allah u naxariisto xabad markay ku dhacday kadib ilaa xilliga ma uusan ogeyn Zakariya ninkan xabad ku dhacday dabadeed Zakariya waxa uu arkay gaarigii oo darbi ku dhacay marka ayuu ku soo baraarugay in xabadda ninkan ay haleeshay Allah u naxariisto marxuumka ka gadaal waxa la geeyay isbitaalka Daarul Shifa muqdisho waxba way ka qaban waayeen waxaana loo sii daadiciyay isbitaalka Madiina halkaasna uu ku geeriyooday haddaba dilka xiis waxaa siyaabo kala duwan u cambaareeyay saxafiyiinta Soomaaliyeed madaxda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan dalka Canada Maxamed Cabdullaahi Aadan Sidi oo ah suxufi rugcadaaya in mudana ka soo shaqeynayay saxaafadda Soomaalida saaxiibkay wariya sare aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay ka joogaan geeridan xadinta lahayd ee ku timid saaxiibkeen walaalkeen Cabdisalaan Xiis runtii Cabdisalaan Xiis anagu waxaan isbaranay sanadku markuu ahaa 2000 wixii ka dambeeyay aad baan markaasi isku naqaanay waliba xilliga aan u shaqeynay idaacaddii xilligii dawladdii Carta ee Radio Muqdisho xilligaasi oo aan aad waqti badan iskula qaadan jirnay xiis nin kaftan badan dad dhexgal badan halkan aan lagu soo koobi karin dabcan dabeecadiisa ayuu ahaa marka waana cambaaraynaynaa dilkaasi waxaana dawladda federaalka codsanaynaa in si ummadda Soomaaliyeed iyo saxafiyiintuba ay u ogaadaan in meesha cadaalad ay ka jirto in ay cadaaladda hor keenaan gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dilka wariye Cabdisalaan Xiis isagana jannadii firdaws Allah ka waraabiyo eheladii qaraabadii uu ka tagana samir iyo iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka bandhiga oo guud ahaan aynu ku soo qaadanayno dilkii loo geystay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis iyo siyaabaha ay uga hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba dilka xiis kadib waxaan qadka taleefanka kula hadlay xildhibaan Qadar Biixi Caalim wuxuuna xildhibaanka ka hadlayaa sida uu uga xun yahay dilka loo geystay wariye Xiis wuxuuna ka codsanayaa dawladda ku meel gaarka Soomaaliya in sharciga la soo taago cidii ka dambeysay dilka wariye Xiis anigu waa xildhibaan Qadar Biixi Caalim waxaan taasi halkan uga diraynaa anigu ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha dawladda ku meel gaarka geeridii foosha xumeyd ee shalay ku timi lagu geystay wariyihii ka socday telefishinka caalamiga ee One Cable magaalada Muqdisho marxuum Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis aad baan ugu tagaysanahay dawladda ku meel gaarka xukuumadda ku meel gaarka waxaan ka codsanaynaa in baaritaan xoog lagu sameeyo oo la soo helo gacan ku dhiglihii dilka geystay waxaan taasi mar labaad u dirayaa ehelkii qoyskii iyo carruurtii uu ka geeriyooday marka hore marka labaad waxaan taasi u dirayaa warbaahinta Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga oo dhan ku hadasha allaha u naxariistay dilka xiis oo murugo iyo urkutaalo ku noqday dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa wariyaasha dhammaantood ay ka codsanayaan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya inay gacanta ku soo dhigto askarigii dilay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis haddaba si aanu wax badan uga ogaano waxaan qadka taleefanka kula xiriiray wariye Maxamed Ciise Maxamuud oo ka tirsan idaacadda Risaala oo xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho wuxuuna ka hadlayaa Maxamed sida uu aragto idaacadda Risaala dilka loo geystay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis bismillah azari aad u mahadsan tahay waan kaga mahadcelinayaa dadaalka aad sameysay magacaygu waa Maxamed Ciise Maxamuud waxaan ka shaqeeyaa idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho run ahaantii Allah u naxariisto saaxiibkeen Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis haddii aan nahay bahda saxaafadda ee Muqdisho dilkiisa aad ayaan kaga xunnahay wuxuu ahaa saaxiib aan in badan isla soo shaqeynaynay shakhsi ahaan markii loo eego oo xitaa idaacado badan aan isku aragnay oo iskala shaqeynaynay inkastoo markii dambe oo asiga dhanka telefishinada u wareegtay anigana qaybtii warbaahinta aan weli ku guda jiray Cabdisalaan Allah u naxariisto waqtigiisa ayaa meesha ku ekaa laakiin inkastoo ay sidaas ay tahay haddana waxaan tacsi aan u dirayaa
inuu samar iyo iimaan eeba uu ka siiyo eheladii qaraabadii iyo sidoo kale bahda warfaafinta ama bahda saxaafadda uu ka tagay cabdisalaan sheekh xasan xiis runaantiina waxaan ku tilmaami karaa falkay cabdisalaan lagu dilay fal foolxun sabab la xiriirta cabdisalaan waxa toogtay wuxuu ahaa ruux dareeska ciidanka dawladda ku labisan waxaa lagu dilay muqdisho gaar ahaan caadana degmada xamar jajab oo maamulkii dawladda ku meel gaarka ayaa ka arrimiya hadda kulay baaritaano ayaa socda oo dawladda xitaa waxa ay sheegtay inay soo qabatay ruuxii falkaasi ka dambeeyay laakiin waxaan leenahay yaan halkaan looga harin ilaa cadaaladda la horkeeno maxkamadda la horkeeno ninkan bahda saxaafadan waxaan leeyahay samar iyo iimaan aan la soo koobi karin Allah idinka siiyo cabdisalaan sheekh xasan xiis waan ka mahad celinayaa saaxiibkay Asari sida wacan quruxda badan ee barnaamijka xasuusta leh uu kaga diyaariyay dilkii wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis aad baad u mahadsantahay saaxiib sidoo kalena waxaa baaqi tacsiib ku aadan geerida wariye xiis diraya xubno ka tirsan ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosayja oo ku kala sugan Nairobi iyo Muqdisho halyeegii weynaa ee dhanka saxaafadda runtii aan is oran karno waxay saxaafaddu maanta weyday mid ka mid ah baalashii ugu muhiimsanaa ee ay runtii ku duuli jirtay markaanu eegno wararka qaabka u soo diri jiray waxaan leenahay Allah u naxariisto anigoo ku hadlaya afka magaca suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Nusaj waxaan halkan tacsi ka wadaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj waxaa tacsidaas ugu horeyn aan ka wadaa madaxweynaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj Burhaan Ahmed Daahir sidoo kale waxaan tacsi taas la mid ah aan sidoo kale aan ka wadaa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj Maxamed Ibrahim Pakistani sidoo kale waxaa tacsidan aan ka wadaa sidoo kale oo soo wakiishay afkoodan aan ku hadlayaa xogayaha tababarada ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusaj Maxamed Gaarane Aadan jeedinayna in arintaas loo wada gunto saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan annaga oo magaca saxafiyiinta ku hadlaynaa aan cambaaraynaa oo mar iyo laba iyo saddex iyo afar aan cambaaraynaa cid kasta oo ka dambaysa arintaas waxaan soo jeedinaynaa in nabadgeliyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan xaalad adag dadkooda u shaqeynaya naftooda u huraya dhibaato badan ku jira sidii dadkooda u gaarsiin lahaayeen war sugan isla markaasna bulshada u adeegi lahaayeen iyaga ka shaqeynaya arrimaha nabadda bulshada horumarinta dhibaatooyin badan ku maraya arrimahaas in adana la target garayso arin aan marna la aqbali karin shacabka Soomaaliyeed iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed cid walba oo garashada oo garaad leh oo danqanaysan aysan aad u soo dhaweynaynin waana qayb ka mid ah dhibaatooyinkii loo geystay saxafiyiin hore oo maartay magaalada Muqdisho jooga isla markaasna looga hortagayo xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda qowlka Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم أنا زهرة علي يوكي أو كمدة صحفيين الصوماليات كسوغا مقالة نيروبي إحرنت دالك كينيا رون أهانتي هدي أن كهدلو دارين كيغا إيا سامينتا أي أغيالتي الله أنحرستا دلكي فوش حما دوان من مقالة مقدشة لو جيست الله أنحرستا وريع السلام شيخ حسن حيس تاسما أهمت هالكان أن كسو كوبي كرا وامد آد نو ساميسي صحفيين طالن بي ساميسي سومالي oo idil bay saameysay wax garad oo idil bay saameysay qofkii damiir leh oo dhan bay saameysay cabdilaan sheekh xasan allah u naxariisto horta waan aqaano inta qof bini aadan la yaqaano dabeecadiisa waxa kamid ahaa cabdilaan allah u naxariisto wiil dagan wuu ahaa wiil farfarana wuu ahaa shaqadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa cabdullaahi axmed nuur waxaan kamid ahay saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi runtii allah u naxariistay dilkii loo geystay marxuum cabdisalaan حيث وحوها متيرايده له كلية صحافة maahan dhamaan bulshada Soomaaliyeed way yaqaaneen wariyaha Allah u naxariiste runtii anagana waxaan ugu dhaweyn oo aan ugu sii dhaweyn waxaan ahayn dadkii la shaqeynayay oo waxaan leenahay gacan ka xaq daran oo maalintii malaaqir la weydiin doono haduu eebaha qadaro ayaa dishay taasna waxay qayb ka tahay dilalkii xasuuqa ahaa ee lagu la kacayay ورياشة صوماليات إيه شعبك صوماليات. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وأبح ظاهر عثمان وحان كمدها صحفيين تكونول مقالة النيروبي عاصمة دالكاني كينيا رونانتي وحنا دياد وغطي رايسان هاي دلكي فوش حماية لو قيسي وريا عبد السلام الشيخ حسن حيس يسوى شقديسة قدانا ينا لقوته وتسيب بريرا قداها مقالة مقدشو تاسي وحا يقيب كتاهاي sida gardarada ama wariyaasha ku hadlaya xurriyada qolka bulshada u shaqeynaya in la aamusinayo waxaan si aad iyo aad uga tiirayeysano oo annaga dhanna wada saameeya hadaynu nahay Soomaali qaasatan saxafiyiinta wariyaas waxa si bareer u toogtay nin la sheegay inuu ku labisnaa dareyska dawladda dareyska ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya wariya cabdisalaan sheekh xasan xiis aad iyo aad ayaan uga naxnay ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsada allah ugu bishaareeyo eheladii iyo qaraabadii oo ifka kaga tagana ilaahay samir yeeman ha ka siiyo waxaan dawladda ku meel gaarka ka codsanaynaa haday ahaan lahayd madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhammaan mas'uuliyiinta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya xil bay qaadeen xilka ay qaadeen waxay u qaadeen shacabka Soomaaliyeed in dilkii ugu dambeeyay ee loo geystay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Xasan Ilaaja kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee jooga magaalada Nairobi runtii marraba inaan wax badan dhaho sababtoo ah ma wada dhihi karo cabdisalaan sheekh xasan xiis waxa uu ahaa saaxiibkay muddo 2 sano ah sanadii 2006 2007 ayaa subax walba israaci jirnay ama aan meel warka wada dooni jirnay kadib ilaa waxa la joogi jirnay maalinkaas oo idil marka laga reebo habeenkii ama waqtiyada dambe ee galabtii cabdisalaan xusuus badan uu leeyahay aniga marraba inaan soo bandhigo meelo badan oo waxa jira dadkii xilligaas aan soo shaqeyn jirnay nagula xamid jiray dadkii cabdisalaan hal meel waxaan ku murugoonay markii la dilay qaar ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed ee Muqdisho xilli aan hal meel ka wada shaqeynaynay marka waxaan marka ugu horeysa tacsiib diraan la u dirayaa dhammaan eheladii qaraabadii ilmihii iyo xaaskii cabdisalaan sidoo kale waxaan tacsiib u dirayaa dhammaan qaranka Soomaaliyeed waa mid kamid ah wariyaasha الله أنحرج وري عبد السلام في حسن حيس وحو كمدها وريات الأصدقاء قوى صحافة الصومالية وحنا إن بدن كسر شقية صحافة الصومالية ويستغلنا علم داكو قد جري صحافة وقدام دان وري عبد الرحمن حسين بريتش أو كمدها وريات الصومالية يا عبر يدرين في تكوها دنديل كحيس اللي وكقيب جلي يكون السفسية الصومالية كوية شان عاصمة ودن كينيا نيروبي طبعا هذا البدن ومسو يستاقين oo waa maalin run ahaantii murugo ballaaran leh oo aanu xusayno dilkii loo geystay saaxiibkan cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ahaa madaxa wararka ee telefishinka Home Cable ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aniga maanta dhaxinta waxay sii dheer oo aan aad u naxay waxay ahayd markii cabdisalaan la dilay waxaan
markiiba wacay allah u naxariistay cabdisalaan markii la dilay sakariye cabdiqaadir cabdullaahi oo ahaa ninkii ag fadhiyay cabdisalaan markii xabaddu ku dhacaysay xaqiiqdii wuxuu dul taagnaa markaan la hadlayay meydka cabdisalaan marka aan la hadlayay nafsadaydu waxay macnaha ahayd anigoo taagan meeshuu meydku u yaalay waayo sakariye waxaan ka dareemayay hadallada uu ii sheegayay wuxuu ka mid ahaa waa uu dhintay cabdisalaan sakaraad buu ahaa alxayaad baan geeyey madiina hadda naftii kaga baxday taas waxay ku tusaysaa siduu u argagaxay waana wax naxdin la run ahaantii oo qofkii markaasi joogay ayaa dareemi kara anigoo markaasi ka faa'iidaysanaya fursaddan baroordiiqda aanu samaynayno waxaan si ballaaran u dhaleecaynaynaa dadkii ka dambeeyey dilkaasi intaas ayaynu kusoo gabangabeynaynaa barnaamijka bandhiga webka oo maanta xiiso gooniya xambaarsanaa islamarkaasina aynu ku qaadaa dhigna dilkii loo geystay wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada ugu kulmeyno waa bahda barnaamijkoo isku duuban oo idinkaga tegaya amaana allah